taariikhdu waa ay qurmaysaa qof walbana waxaa hor yaalla adduun iyo aakhiro waxa uu hormarsaday isku mid ma aha hoggaamiyaal shacabkooda u jiheeyo doorasho qof iyo cod ah iyo hoggaamiyaal dagaal laga baaqsan karay ugu dambaynna ku dhammaan doona in laga heshiiyo ku daadiya dhiigga wiilal wada dhashay isku mid ma aha shacab dhiiggaas rabbi xarrimay ku kala taageeraya hoggaamiyaal qarnigan casriga ah doonaya in ay qori ku kala adkaadaan iyo shacab madaxdii maamuli lahayd codkooda ku dooranaya kolba garatay hoggaamiyaasha iyo shacabka aan ka hadlayo galmudug iyo puntland waa laba maamul oo daris ah balse hiigsiga ku kala fog dowlad goboleedka puntland waxaa la aasaasay 23 sano ka hor halka dowlad goboleedka galmudugna ay sanadkan xustay 15 sano guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay 23 sano kadib aasaaska puntland maanta waxaa shacabka magaalooyinka Qardho, Eyl iyo Ufayn ay u dareereen doorasho tijaabo ah oo qof iyo cod ah si ay u doortaan wakiilada urur siyaasadeedka dowlad goboleedka Puntland halka 15 sano kadib aasaaska galmudug uu dhiig ku daadanayo magaalada Guraceel shacabkii halkaas deganaana uu roobka ku haleelay bannaanka magaalada ku darso waxa diriraya waa wiilal wada dhashay mana jirto dadaalo colaadaas lagu qaboojinayo waxaa jirta dhimasho badan dhaawacuna magaalooyinka galmudug waa uu soo dhaafay waxaa colaadaas ku geeriyooday dad isugu jira shacab saraakiil iyo ciidan dadka dhinaca wanaagsan wax ka eega waxay leeyihiin maanta galmudug uma baahna isdhaleeceen balse waxay u baahan tahay in la joojiyo dhiigga wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed kuwaas oo u dhimanaya ujeed aan ahayn kii ay qorayga u qaateen haddiise aan la maqlin baaqas dhimashada iyo dhaawacu waa uu sii socon doonaa ee colaad beri laga heshiin doono yuusan wiil kale inooga dhiman waa Cabbaas Xuseen Muuse telefishinka shanta Soomaali 5 Somali TV Muqdisho abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus